waa maxay beeraha isku dhafan? beeraha isku dhafan waa nidaam xoolaha iyo dalagyada lagu soo saaro hal beer. dhaqan ahaanna waxaa ku jira dalagyo iyo xoolo kala duwan. xoolahaas marka waxaa ka mid noqon kara idaha, ariga, lo'da iyo doorada ayaa ka mid noqon kara xoolahaas lagu dhex qasi karo dalagyada lasoo saarayo. xoolahaas marka faa'iidooyin badan oo aan gadaal ka sheegi doono ayaa laga helayaa, oo ay ka mid tahay inaad ku rarato wixii aad beertaada kasoo goyso, iyo weliba inaad beertii ku fasho ama ciiddii aad ku sinto. faa'iidooyinkaas ayaa ka mid ah xoolaha inaad ku qasto dalagyadaadii beerta. laakiin soomaalida waa naqaanaa way kala socan yihiin, ama waa beeraley oo waxay soo saaraan dalagyo kala duwan, ama waa xoola dhaqato oo duurka ayay ku hayaan xoolaha. xaqiiqadiina haddii aan rabno inaan waddanka horumarino waa inaan nidaamkaas wax ka bedelnaa. marka nidaamkan oo la isku qasayo dalagyadii iyo xoolihii xagee laga isticmaalaa? adduunka oo dhan ayaa laga isticmaalaa. asia waa laga isticmaalaa, africa waa laga isticmaalaa oo waa la isku qasaa. sidoo kale yurub iyo qaaradaha kalena waa laga isticmaalaa in xoolihii iyo dalagyadii la isku qaso. laakiin qarnigii lasoo dhaafay beeraleyda reer galbeedka wadamada yurub oo kale camal waxay awoodda saareen inay ku takhasusaan qaybo gooni ah, oo ay awoodda saaraan oo ay kala soocaan labada nidaam, xoolihii iyo dalagyadii. oo ninkii xoola soo saarayana uu cuntadiisi usoo saarto, ninkii soo saaraya dalagyada kalena uu gooni usoo saaro, oo la kala sooco labada nidaam, oo qofba uu meel ku takhasuso ayay aad awoodda u saareen yurub. xoolihii oo kale markii meel lagu hayo, meeshaas ayaa waxaa loogu keenaya wixii ay cuni lahaayeen ayagoon dhaqaaqin. waxaa loo dhisay marka meelo lagu hayo oo cuntada bartooda loogu keeno ayagoon meelna aysan aadin, sida doorada kaaga muuqata meeshaan oo kale, iyo lo'dii oo la xareeyey ayadana meel lagu xareeyo oo loogu keeno cuntadooda. waxyaabaha u suurtageliyey marka inay nidaamkaas sameeyaan oo kala soocaan oo qofba uu meel ku takhasuso, waxyaabaha u suurtageliyey wadamada reer galbeedka waxaa ka mid ah inay isticmaaleen antibiotics iyo fitamiino iyo hormones waxa la yidhaahdo inay isticmaalaan ayaa u suurtagelisay oy ku kala takhasusaan. laakiin hadda yurub aad ayaa waxaa looga jecel yahay nidaamkii hore oo ahaa in la isku qaso xoolihii iyo dalagyadii, in la isku qaso aad ayaa looga jecel yahay. sababahana gadaal ayaa ka sheegi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo. marka reer galbeedka iyo yurub awoodda ayay saarayaan inay hadda isku qasaan, oo ninkii xataa aan xoolo lahayn wuxuu samaynayaa beertiisa inuu ka kireeyo dad xoolo leh si ay xilligaas ay u daaqaan. laakiin annaga haddaan soomaali nahay, dhibaatada jirta meel kasta iyo gobol kasta oo waddankeena ka mid ah caanaha iyo hilibku waa ku yar yihiin. sidoo kale isku filaasho maba aana ka gaarinba dalagyadii iyo hilibkii iyo caanihii midna. sababaha marka yurub oo kale ay ugu soo noqdeen waxaa ka mid ah inay ku dareen crop rotationkii ama dalagii la kala wareejinayay inay ku daraan ayaa ka mid ah. marka annagana maadaama aanan labadaas midna aanan ka gaarin isku filaasho, nidaamkan aad ayaan ugu baahannahay. weligaanba iskumaana qasi jirin, hadda inaan bilowno oon ku noqonno oo la isticmaalo nidaamkan aad ayaan ugu baahannahay. oo waxaa jira waxyaabo badan oo beeraleyda ka khasaara oo hadday xoola haysa lahaayeen uga faa'iidaysa lahaayeen. marka insha allah videogan waxyaabahan uga hadli doono oo soo socda oo dhiman waxaa ka mid ah sababta ay u fiican tahay in la isku qaso xoolihii iyo dalagii. waxaan kaloo uga hadlaynaa inay tahay wax muhiim ah oo haddii aan rabno baahida iyo faqriga ka jira waddankeenna iyo kobaca dhaqaalaha ee beeraleyda inaan kor u qaadno, haddii aan rabno waa qasab inaan nidaamkan samayno oo isku qaska ah. waxaan kaloo ka hadli doonaa haddii ilaahay yidhaahdo waxyaabaha loo baahan yahay beeraleyda iyo dalagyada u baahan yihiin oo labada meelood bay uga faa'iidaysan karaan. waxaa jira dalagyo ku fiican inaad uga faa'iidaysatid mirahoodiina inaad iibiso, qolfahoodii iyo wixii kasoo harana ay xoolaha kugu noolaadaan. marka hal dhagax ayaa waxaa ku dilaysaa laba shimbir. sidoo kale waxaan ka hadli doonaa caqabadaha haysta beeraleyda, weliba beeraleyda soomaalida dhibaatooyinka haysta inay hirgeliyaan gobolada ku fiican nidaamkan
dhibaatooyin iyo caqabadaha jira oo haystana waan ka hadlaynaa haddii ilaha yidhahdo. waxaan rajaynayaa inaan video ka faa'iideen intaan video la mid ah aan ku kulmi doono. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu iyo barasho wacan.